madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay gobolka Awdal. wafdigan ayaa waxa ay maamulka gobolka kan degmada iyo dadweyne aad u tiro badan kaga hortageen duleedka magaalada Dila halkaasi oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay. madaxweynuhu markii uu soo gaadhay magaalada Dila ayaa waxa uu la hadlay dadweynaha waxaana uu yidhi إلى ديار الدين أنا وحنا عبدنا إلى نبينا عيانا ديار كنا هاي دولة هان إلى نوحي الدوك يدفع القرية وحي قار كان هذا كيس هذا ودوي كيس تاي هذا سكرت هاي وحق بشتى من أول بيت إلى نوحق قبلنا وإنه يركسوا والجسنوا وإنه بعضاس قبسنوا وإنه تركينا هو مريتيسا تركينا هو مريتيسا يمريتيسا يستحقيسا لقوم حقينا madaxweynuhu intii uu dhaxda soo socday waxa uu la kulmay maamulka hay'adda horumarinta wadooyinka gobolada Awdal iyo Salale Asarda halkaasi oo uu kaga dhageystay warbixin ku aadan waxqabadkooda dhinaca wadooyinka oo la tilmaami karo inuu yahay ka ugu ballaaran ee guud ahaan gobolka Awdal ka hirgalay waxaana uu isla halkaasi xariga kaga jaray wado 6 kiiloomitir dhererkeedu dhan yahay oo ay xukuumaddu maalgelisay isla markaana ay fulisay hay'adda Asarda madaxweynaha oo ay safarkan ku wehelinayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka socday golayaasha qaranka iyo marwada koowaad ee dalka ayaa waxa ay soo beegsadeen magaalada Boorama waxaana si ballaaran loogu soo dhaweeyay mar kale magaalada Boorama dadka reer Boorama oo ay kala hadhin maanta soo dhaweyntan madaxweynaha waxaana wadooyinka hareerahooda tubnaa dadweyne aad u tiro badan kuwaas oo watay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ay gabi ahaanba dadku ka midaysnaayeen soo dhaweyntan ballaaran ee madaxweynaha maanta loo sameeyay madaxweynaha ayaa waxa uu xariga ka jaray mashaariic isugu jira wadooyin iyo dhismayaal ay gabi ahaanba xukuumaddu hirgelisay kuwaas oo qayb ka ah waxqabadka xukuumadda muddada ay talada hayso tani beddelkeedana waxa uu madaxweynuhu dhagax dhigay guriga martida ee magaalada Boorama oo lagu sameyn doono dib u habeynadu ballaaran madaxweynaha ayaa mar kale waxa uu dadweynaha reer Boorama kala hadlay goob fagaara ah waxaana hadaladiisii kamid ahaa هذا ودوي تاي هذا وحكاية تايبة أكاو مطلع الكردون دوتو الكاي بدل الكردون دوتو الكاي هو سوى دوتا ومرجع الناس دوتا إن شاء الله تعالى أنا وروح ربنا قالنا إلى الدولة هذا وحياك كعانك كيسرنا سيدنا أول بيجي شيء أنا كل كيسر دونو وأروي دونو هذه هاك عبد الله علي يوسف